waxa qof walba uu raba dunidan waa sida uu dhaqaale ku sameyn lahaa waxa wax u baranaysid aad u shaqaynaysid waan sidee lacag ku yeeshaa waliba mid aad u badan hase yeeshee waxa jira dad milyaneer ah qaar bilyaneer ah oo qaarkood waliba da'dooda ayadoo yar oo 20 sano jiryaal ah ay hantidaas ay sameeyeen haddaba waxa isweydiinaysaa sidee ku sameeyeen dadkan waxan ma ka cilmi badan yihiin adiga nasiibkaaga miyaa xun masir adiga aadan helin ayay hayaan ayaga mise nasiibka saacidayo fursado adiga aadan helin ayay heleen balse ka waran haddaan kuu sheego inaad khaldan tahay oo aysan jirin wax nasiib la yiraahdo oo adigii ayaga aad ku kala duwan tihiin hal wax formulaaga ayaga ay isticmaaleen iyo kan adiga aad isticmaalaysid ayaa kala duwan balse ma ogtahay in uu jiro formula la isticmaali karo si aad ku sameyn kartid lacag iyo hanti haddaba muuqaalkan ayaan ku eegaynaa waxyaabahaas oo idin qaybta koobaad beenta laga dharjiyay ama aad ku soo barbaartay maxay markii aad yarayd ama aad wax baranaysay ilaa jaamacad iyo ilaa iyo iskuulkii waxa lagu sheegayay in aad wax baratid si aad u shaqaysatid iskuulada iyo jaamacadaha waxay ku tababarayaan ama ay wax ku barayaan si aad ku noqon lahayd shaqaale haddaba adigu formulaaga iyo maskaxdaada waxa ka dhaadhacsan waxay tahay in shaqaalanimada ay la mid tahay inaad lacag heshid oo aad shaqaale noqotid si aad lacag aad u samaysid shaqooyinka caadiga ahna waxay qaataan midka ugu yar 8 saacadood maalintii tusaale haddii $20 aad ku shaqaynaysid saacadii oo aan dhahno 40 saacadood ayaad shaqaysay isbuuci ugu yaraan waxay kugu qaadanaysaa 24 sano in aad samaysid $1 milyan waa xilli da'daadu ay weynaatay oo aad duqowdayba iyo waliba haddii laga sii jara canshuur iyo sixir bararka oo qiimaha lacagta hoos u dhiga mar walba lacagtaadi intaas way ka yaraanaysaa waxa ku soo haraya wax yar balse halkaas waxaad ku lumisay wax aad u qiimo badan waana waxa qof walba uu haysto balse si kala duwan loo isticmaalo waa shayga ugu qiimaha badan ee qof walba uu haysto inta uu nool yahay waa waqtigaagi waxaad ku bedelatay adiga lacag waqtigana hal mar hadduu tago ma soo laabanayo waxa isweydiinaysaa marka dadkani bilyaneerada ah oo milyaneerada ah oo waliba qaarkood ayagoo da'doodu ay yar tahay hantida intaas la sameeyay sida ay ku sameeyeen waa su'aal maskaxdaada ka guuxayso haddaba dadkani formulaaga ay isticmaaleen iyo kan aad isticmaashay ayaa kala duwan lacag iyo dhaqaale haddii aad rabtid inaad samaysid waa in aad isticmaashaa formulaagan waa in aad xallisaa dhibaatooyin you have to solve problemskaasna waa in solutionkoodii aad keentaa solutionkaasna aad ganacsi aad ka samaysaa kadibna aad iibisaa intaasoo keliya miya problem raadi solution hel kadibna iibi masaas lacag lagu samayn karaa haddaba halkaas ayay ka bilaabataa laakiin waxyaabo kaloo badan ayaa jira xaqiiqada lacagta iyo dhaqaaluhu maxay tahay marka halka wax oo adiga lagaaga baahan yahayna maxay tahay in aad joojisid in aad ceyrsatid lacagta haddii hadafkaaga uu yahay in aad lacag ka daba carartid oo kaliya ma samayn kartid lacag waxaa lagaaga baahan yahay in aad mushkiladaha aad ceyrsatid oo problems aad raadisid bulshada ka dhex jira problemskaasna xalkiisa aad keentid ganacsina aad u bedeshid problems waxaad ku ogaan kartaa iyo mushkiladaha jiro bulshada aad ku dhex jirtid baaritaana aad samaysid iyo dadka oo aad ogaatid dhibaatooyinka haysta iyo waxa ay la'yihiin aysan haysanin tusaale oo kale dhibaatada ay xalisa Amazon dadku waxay ku dhibanaan jireen in ay aadaan dukaan ay ka soo adeegtaan alaab ay soo gataan balse qofka asagoo xaafadiisa jooga ayuu dalban karaa alaabtaasna loo keeni karaa xaafadiisa asagoo jooga dhibkaas ayayna xalisay adigana si lamid ah dhib jira ayaad raadinaysaa dhibkaasna xalkiisa ayaad keenaysaa waxa lagaaga baahan yahay waxay tahay in xalka aad raadinaysid uu noqdaa mid la ballaarin karo oo saameyn kara bulsho malaayiin iyo balaayiin bulsho ah oo caalamka daafaha caalamka kala jooga in xalkaaga ay isticmaali karaan oo uu gaari karo waa in aad ka fikirtaa inta aadan samaynin ka hor tusaale haddii aad maqaayad furatid ma ahan mid la weynayn karo not scalable oo waxay ku kooban tahay hal goob oo kaliya sidoo kale haddii aad macallin aad tahay oo class aad siinaysid dad casharada aad bixin kartid aad ay u kooban tahay maalin walba mana ahan ganacsi la iskeel gareyn karo oo bulsho badan saameyn kara oo gaari kara balse haddii aad online ka dhigtid waxaa gadan kara casharadaas malaayiin qof oo caalamka kala jooga umana baahnid in aad waqtiga ka galayay uu ka galo halkaasna waxaad ku save gareysanaysaa waqti badan haddii aad software aad samaysid waa scalable softwarekaasna wuxuu gaarayaa adeegaas dad caalamka meelihiisa kala duwan kala jooga sidaas ayaad lacag ku samaynaysaa mar walba marka halka aad keenaysid waa in uu noqdaa mid la iskeel gareyn karo oo gaari kara bulsho aad u badan oo si aad dhaqaale aad ku samayso markii aad sidaas samayso maxay tahay natiijada maxay kugu abaalmarin maxaad u helaysaa markii aad waxaas waqti ah iyo adeegaas aad markii aad dhistid ganacsi oo xal aad keentid oo mushkilad aad xalisid ganacsigaaga waqti badan ayaad gelisay oo waad soo dhisaysaa $1 bilyan inuu u qalmo ayaa laga yaabaa value-giisa inuu yahay ama intaasoo milyan oo dollar haddaba laba qaab ayaad natiijo fiican ku heli kartaa kow in xalkii aad keentay aad iibisid oo lagaa gato oo lacag balaayiin dollar lagaa siiyo kadibna aad hore u socotid oo aadan weligaaba xataa shaqaynin shirkadda PayPal waxa laga iibiyay eBay waxayna ku gadatay $1.5 bilyan $165 milyan oo kamidana akoonka Elon Musk ayay ku dhacday sababtoo ah wuxuu kamid ahaa aasaasiyaasha iska leh shirkadii PayPal ilaa hadda way shaqaysaa qiimaha lagu gaday ka badan ayayna maanta ay suuqa ka joogtaa Instagram waxa iibsaday Facebook ayadana si lamid ah waxa lagu gatay $1 bilyan marka halkii aad keentay iyo ganacsiga aad samaysay
in laga iibsado oo billions of dollars laga siisto ayaad gaaraysa. haddii kale waxaad samayn kartaa in aadan iibinin oo aad ku adkaysatid ganacsigaaga oo kambanigaaga aad horey u sii wadatid. waxaa laga yaabaa inaad jeceshahay ganacsigaaga oo aadan rabin inaad iibiso, in qiimaha isleeda markaas ayada suuqa uu ka jooga aad aaminsan tahay ka badan inuu gaari doono sanadaha soo socda oo aadan rabin inaad si dhaqso aad ku iibisid. damo aad sii haysatid oo aad waqti gelisid oo aad sii shaqaysidna oo kambanigaas iyo shirkadaas oo shaqaysana dee dhaqaalahaaga kor ayuu sii aadaya oo uu badanaya. habkaas ayaad lacag badan ku samaysay adigoo kaliya mushkilad xaliyay. waxaan rajaynayaa inaad ila fahantay intaas. muhiimaddu waxay tahay in aad dhib raadisid, mushkilad jirto oo dadka haysata inaad raadisid, mushkiladaas xalkeeda in aad keentid, halkaasna aad ganacsi u bedeshid oo aad ganacsi ka samaysid oo aad iibisid. qodobka ugu muhiimsanna waa in aad mar walba aad mushkilad ceersatid ee aadan lacag ceersanin. balse haddii aad dhahdid waxbaan soo baranayaa, digri ayaan soo qaadanayaa, shaqaale ayaan noqonayaa, haddaad dhahdid waqtigaaga waxaad ku bedelatay lacag aad u yar ayaana samaynaysaa by the time da'daadu aad u weynaato. shaqaduna waa in aad shaqo aadid, aad soo laabatid, cunto aad cuntid, aad seexatid, haddana sidii aad ku laabatid 30 sano sidaas ayaad ku jiraysaa. ma helaysid xorriyaddii aad rabtid. dhaqaale ma ahan waxa qofka uu ordayo hadafkiisu, waa xorriyad inuu qofka uu safri karo caalamka meesha uu rabo u safri karo, in waxa uu rabo uu gadan karo isagoona ka walwalaynin ma awoodi karaa. riyada qofka uu rabo iyo waxa uu sawiranayo waayo hadafka qofka uu leeyahay inuu u gaaro. shaqaalanimadu ma ahan waddo ku gaarsiinaysa in aad noqotid hantiile. waxaan rajaynayaa in aad wax badan ka faa'iiday muuqaalkan oo ku maasantay daawashada muuqaalka. haddii halkan aad soo gaarto muuqaalka like saar, channelkana subscribe saaro, asxaabtaada la share garee. intaan kulmayna muuqaalkan midka xigana waxaan kaga tegaa sidaas iyo nabadiino.